بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادوينها إيقا في صومالي كوهاد لو أوردن aad baan u salaamayaa qiso yaro ayaamahan aad iyo aad uga socota oo xiisa leh weliba baraha bulshada oo ku saabsan walaasheen Ilhaan Cumar siyaasiyadda waxaa la yidhahaa Congress-ka ee Mareykan gobolka Minnesota iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo delegation-ka hogaaminayay ayaa halkan qiso yaro baraha bulshada aad looga qaada dhigaya runtii aan laba soconin ayaamaan baraha bulshada aad u gelin ayaa igu la soo beegantay saaka marka aad bay xiisa u leedahay inay interesting tahay laakiin runtii anigu kama hadlayo xaqiiqdan wax the picture itself laakiin mas'uuliin haddaan nahay ambaba Soomaaliyeed oo de asaaskoodu Soomaali yahay ambaba asaaskoodu reer Soomaaliya yahay de waxay ugu mas'uuliyiin baan nahay laakiin waxa ka soo horeysay mas'uuliyinnimada ana ambaba lagu mandate-ka cidana siisay maxaan metelnaa ma waxaan metelnaa interest-ka Somaliland ma waxaan metelnaa interest-ka Soomaaliya mise waxaan metelnaa interest-ka shicib weynaha ambaba British-ka ambaba American-ka ambaba European-ka ambaba Canadian-ka mandate-ka la siiyay taasi horta waa su'aal jawaab yarna waan ka bixin karaa sida aniga fikradeyda gaaban ila tahay marka u horeysa waxaan wadanahay dee qof waliba ethnicity meel buu ka soo jeedaa xitaa dadkan ajaanibka ambaba British-ka ambaba oran karaba native baan laba generation dib u noqon karaa accent lahayn iyaga laftoodu asaas bay leeyihiin oo deegeed bilaa xidida lama arag marka qof waliba horta mowqif buu leeyahay meel lagu ka soo jeedaa siyaasaduna runtii halkad ka soo jeedaba maaha asalkeedii siyaasadda sidan anigu arko waxay leedahay waa ideology waa belief waxna waad ku raacaysaa dadka waxna waxaad oranaysaa anigu that's not what I believe marka Ilhaan de choice-keeday leedahay whether ay Somaliland runtii de ayidsan tahay iyo madaxdeeda sharafta leh runtii de sharaf naga mudan ambaba madaxda Soomaaliya haddana anaku British nahay ambaba American madaxda Soomaaliya Somaliland Djibouti Ethiopia sharaf bay naga wada mudan yihiin because annaka martibay noo yihiin annako asaaska iyagu kaba soo jeeda haddana martibay noo yihiin martiduna dee dadka way soo dhaweysaa adiga oon dee ayidsanayn waxay martidaasi belief garaysantahay iyo mowqifkay u socdaan haddana marti waa marti intaad u gogol xaadho dee welcome tidhaha anigu waxaa ma ayidsaniye laakiin dee martideydii baa tihiin markaa runtii horta taasi waxaan u malaynayaa inay walaashay Ilhaan in yar seegtay waxayna u seegtay dee Ilhaan haddayna shaqsigeedu belief garaysnayn qadiyadda Somaliland de kuma khasbana anuguba kuma khasbani inaan qadiyada kale belief gareeyo because my choice way I have a right to vote I have a right of my opinion and waa caadi taasi laakiin ixtiraamka ayaa horta wax walba ka muhiimsan mowqifkaaga oo cadaysana waba ka sii muhiimsan inta mowqifkaaga cadaysa ixtiraam meeshii ante qolihii soo farsitaan waxaan ma belief garaysan laakiin I have a responsibility duty marka runtii halka waxaan malaynayaa walaashay way ka yar fakatay waxayna ila ekaatay Ilhaan iyadoo aad siyaasadda ugu cusub oo only 2016 baan u malaynayaa Ilhaan ay saxaafadda siyaasadda soo gashay runtii waxaan anigu oran lahaa fikradeyda gaaban Ilhaan way ku degdegto waxay noqotay Soomaalidu been way sheegtaa laakiin been kuma mahmahdo dhalaankii hooyadood dhasha baray bay Ilhaan halka ka noqotay Ilhaan waxaan uga fiicnaan lahayd iyadoo shaqsi asaaskeedu Soomaaliya yahay oo de marti Soomaaliyeedna u timi inay runtii ay gudida ka mid tahayna golaha gudida foreign policy-ga ee Americana ka mid tahay waxa runtii anigu kula talin lahaa Ilhaan iyo
soomaali badan oo dee siyaasadda soo gasho meel walba kasoo baxday dee mowqif anakoo wadana haddana dee runtii waa inaan soo dhaweynaa dadka kalena ee magaalooyinka kale ambaba wadanada kale ka yimi welcome marka waxaan haddaan anigu maanta halkii ilhaan isdhig lahaa aad iyo aad baan horta usoo dhaweyn lahaa 2 siyoodba ambaba 3 mid soomaalinimo kusoo dhaweyn lahaa mid waxaan kusoo dhaweyn lahaa muslimnimo midna waxaan kusoo dhaweyn lahaa maqaankan ku fadhiyo cod badan oo Soomaaliyeed oo nooc walbana waan ku fadhiyo waan kusoo dhaweyn lahaa waxaan kusoo dhaweyn lahaa de waxaan ahay American citizen and matala American interest marka intaas American interest iyo waxa soo dhan waxa ka horeeyo horta de siyaasaddu waxna waad believe garaysaa iyo waad u codaysaa waxna waad ka codaysaa is reason ka uga codaynaysan marka golaha la soo dhigtaa oo ilaa anigu qodobka rally kamihi therefore I'm not going to vote on that topic but I do respect the opinions of others marka ilhaan iyadoo qadiyada Somaliland runtii de ayidsanayn and she has a right to and I respect for her laakiin inay sawir soo dhigta meesha tiraahdo lama fahmayo dadkan qolooyinka kale ma fahmayaan I think taas iyada maqaankeedii bay hoos u yar dhigtay waana sharaf daro waa guul runtii ay iyadu isku dhaawacday falalkeedana maanta aad iyo aad runtii de loogu qaadaa dhigayo baraha bulshada social media umanay fiicnayn umanay haboonayn anigu haddaan iyada oo kale ahaan lahaa intaan qadiyadayda sidan horeba u horta soo dhigto ayaan waliba reception u sameyn lahayn soo casumi lahayn soo dhaweyn lahaa because ana marti la ii yahay qadiyadaada ma rumaysnin laakiin de marti baad ii tahay martidana waa tii la soo dhaweyn jiray marka anigu runtii talada yare gaabaneen u dhiibayo siyaasiyiinta dambe noo soo bixi dooniyo kuwa kale ee joogaba de waa la wada matalaa meel baa laga wada yimi de waxna waa la believe garay waxna lama believe garay laakiin inay baraha bulshada isku galno oo sawir isku dhigno oo waxaan munaasib ahayn oo dhalinyarada hoos inoo eegaysa ee ay role modelka u nahay ay naga daba qaato ma fiicna tusaale fiican waa inaan ka tagnaa madaxdii Somaliland ee Mareykan tagtayna aad bay u hambaliyeysan yihiin safiirka Somaliland aad buu hambaliyeysan yahay dadweynihii Somaliland ka qayb galay aad bay u hambaliyeysan yihiin u sharaf u leeyihiin oo ku ixtiraamay mid waliba maqaanka ku soo dhaweeyay maqaankii u sareeyay Somaliland lagu soo dhaweeyayna uu ahaa marka runtii Soomaali bay nahay meel kala qaban mayne qadiyadaha Somaliland ina kala kaxaynin iyo Soomaaliya de Soomaaliyana waxaan doonaynaa waa wadankayagii waa walaaladayo de we respect them we hope inay bal de ilaahay oo xaq garadsiiyo de Somaliland waa taa hore u socotay mabruuq madaxda Somaliland siyaasadana haday noqoto Europe iyo America dadkaygan jooga de runtii siyaado badan baan anigu u arkaa oo aan insha Allah mar dambe ka hadli doono oo runtii inaan de metelna dadka yagii halka naga soo doortay iyo kuwii naga dambeeyay iyo qaar walba iyo dadka wadanka u dhashay iyaguna de codayaashina siiyay intaba we need to respect siyaasadda ma aha in lagu kala dhaqaaqo siyaasaddu waxa weeye in la isfahmo in la is-ixtiraamo de madaxweyne dan oo wadan dan ka yimi ambaba delegation wadan dan ka timina oo de maqaan sare lagu soo dhaweeyna de waa in la ixtiraama kol hadayna qadiyadii aad adiga ku dooratay ayna dhaawacaynin they you gotta welcome them and say open hands de dadkayga native ka aan ahayn u dhalan native kuna de wada accent baan leenahay ilhaan baale anaale siyaasiyiina waan wadanahay de so what so alhamdulillah we need to respect
caruurtayada u dhalatay wadanka ayaa native anagu manihi native accent-kana runtii anigu shaqsiyan Raaqi Ismaaciil anoo xildhibaan accent-kaygan ku faanaa wadannimadaydaan ku faanaa Soomaalinimadaydan ku faanaa Muslimnimadaydan ku faanaa because that what makes me the difference waxa la igu doortay ma aha okay because I'm in British accent baan ku hadlayaa in American accent baan ku hadlayaa no waxa la igu doortay ideology-gayga waxaan believe gareeyay passion-kayga fair and justice kan la jeclahay waxaan naftayda la jeclahay inaan shaqsi kale bini aadamana la jeclahay